waxaa lagu bixiyay malaayiin lacageed si ay u noqoto koox maamuus ku leh horyaalka carqaladaysan ee Premier League. hase yeeshee qiyaas qaadashada dadka macquulka ah ayaa noqotay sida ay ku bilaabatay darteed xoog weyntii kubadda cagta ee Ingiriiska in malaayiinkaasi ay yihiin kuwa aan lagu manaafacsan. kal ciyaareedkanna sida ay u saadaaliyeen ay u noqon doontaba midkii muunabeelka. balse macallimu Thomas Tuchel ayaa meel kaga soo baxay Blues oo ku sii socotay bohol weyn, caddeeyayna barbarka ay wax ka qaldanayeen in ay noqonaysay dhanka iyo hogaamiyahoodii hore ee Lampard. beri waxaynu joognaa Diamond uu yahay Mason, Winner uu yahay Halyay, xarageeyaha ciyaartana la dhahayo Jorginho, halka awoodiisa goolhayanimana uu banaanka soo dhigay kiipa oo baryihii Lampard goolkiisa uu ahaa sida doonto u booqo. daqiiqadii 20aad ee ciyaartii ka dhacaysay Stamford Bridge waxaa dhacday inuu dhaawac sheegtay Tammy Dere, balse waxaa bedel ku soo galay Oliver Giroud. bedelkaasi ayaana u noqday bedelkii barwaaqada Blues kadib markii isagaba uu dhex dhigay bilowga goolka koobaad shabaqii Newcastle. Giroud ayaana sidaasi loogu caleema saaray in uu noqday laacibkii labaad ee goolasha ugu badan dhaliyay isaga oo bedel ku soo galay ciyaar Premier League ah kadib Defoe. goolkaasi ayaana u noqday joogdheeraha reer Faransa kiisii 21aad. shanta issaareen taageerayaasha Chelsea iyagoo yiri hadda ayaynu aragnaa kooxdeennii dhabta ahayd, sababa la xiriira sida kalsoonida lahayd ee ciyaartooydooda ay ugu baashaaleen Newcastle United oo goolkii labaadna uu u celiyayba Timo Werner oo gool in uu dhaliyo haraad u qabay 1000 daqiiqo ama 100 maalmood. Timo sidaasi ayuu isaga tuuray heeryadii gool la'aanta. Chelsea ayaana awood u yeelatay isla qaybtii hore ee ciyaarta in go'aan cad ay ka gaadho Newcastle United oo martiqaad ay ugu samaysay galbeedka London. welina horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska waxaa ka madax ah Manchester City oo haysata 53 dhibcood, halka labaad ay fadhiso Manchester United oo ku xisaabtamaysa 46 dhibcood. saddexaadna waxaa ku jirta Leicester City oo haysata 46 dhibcood. Chelsea waxay soo gurguuratana ugu dambeyntii waxay Iskeentay Kaalinta Afaraad ee kala sareynta horyaalka ugu xabaasada badan qaarada Yurub iyadoona ku xisaabtamaysa 42 dhibcood. shanaadna waxaa ku jirta West Ham oo iyadana haysata 42 dhibcood. Liverpool oo noqonaysana kooxda daafacanaysa horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska waqti xaadirka kan waxa ay ka soo muuqanaysaa kaalinta 6aad iyadoo haysata 40 dhibcood. waxaan ahay Maxamed Cabdirasaaq Tolman.